ilma ajakis isagoon wicin oon u tacsiyaynin oon oranin inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun ayuu yiri lacag baan u gurayaa. waa wallaahi waa habeen jimca kelmad beena inaan idiin sheegin waxay gaadheen lacagtii inuu saa ugu ciyaaro wiilkii نسيت كم يا عمر عثمان محمد نمبر كيس يا لو درو يا بنفيشرك محمد عبد مريدي 500 USD digniintaana waxay ku socotaa dadka dhaceen lacagta agoonta hadiiba ay jirto waxaan leenahay helo nambarkiisa haysa iyaarkiisa lacagta ku soo hagaaji 24 saac gudahood ma ku soo hagaaji weysay war wanaagsan ma laga heli waayay sidoo uu bursa xamar lagu keenaa saaxiibayaal muuqaal kale ayaan idin haynaa hore waxaan u maqli jiray adduunyada waxaa laga ordaa waa ceeb aakhirana cadaab qofkii damac ka gala islamarkaana hamiya maal ay leedahay agoon islamarkaana damac weyn uu ka galo maalinta qiyaamo ayuu dhibaatadeeda dhaxlaya ahay maalmihii ugu dambeeyay baraha bulshada waxaa aad u qabsaday dad la sheegay in magaca cabdi muriidi dheere ajakisa ay ku ururiyeen lacago fara badan iyaguna markaasi dadka ay ka soo qaadeen u sheegay in ay u dirayaan agoonta uu ka geeriyooday marxuumka cabdi muriidi dheere ajakis maalmihii ugu dambeeyana dadka aadka u isticmaala social mediyaha ay aad kaga hadlayeen iyagoo qaarkood si maldahan uga hadlayay halka kuwo kalena ay furka tuuranayeen islamarkaana caddeemo rasmi ah soo bandhigayay haddaba baabajey jeeke iyo weliba walaasheen nimco hebe ayaa maalmihii ugu dambeeyey si kulul uga hadlayay arrimahaasi wayba tahay in laga hadlee inkastoo dadka youtuberada ah ay isku waafaqeen in dadkaasi lacagaha agoonta cunaya magacyadooda la carabaabo haddaba waxaa la helay tuugii ku qaraabanayay magaca marxuum cabdi muriidi dheere ajakisa islamarkaana xoolaha dadka uu ka soo ururiyo isaga cunayaya ahay waxaase la isku raacay in lacago fara badan uu soo aruuriyey laakiin $500 keliya uu diray xataa 500 ma uusan direene waxa uu u diray sababo la xiriira inuu isaga aamusiyo haddaba baabajey iyo weliba youtuberada kale ayaa arrimahaasi ka hadlay baabajey waxa uu sheegay in maalmihii ugu dambeeyey uu aad ugu mashquulsanaa isaga iyo cumar shama sidii markaasi loo heli lahaa waxyaabo markaasi dadkan uu ka geeriyooday cabdi muriidi dheere ajakisa ay noloshooda ku maari lahaayeen inkastoo Astaan TV ay mahad gaara mudan tahay oo ay shaqo siisay curadka Allah u naxariistay cabdi muriidi dheere ajakisa baabajeyna uu soo jeediyay in reerka ugu yar loo iibiyo bajaaj si markaasi ay u maareeyaan noloshooda nimco hebe iyo weliba jeekayna arrimahaasi zaa'id ayay kaga hadleen laakiin waxaase nasiib darro ah adigoo qof muslima Soomaali ah in xoolo agooman ay leedahay aad isticmaasho iyadoo markaasi aad been ku qaraabanayso إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا أهي إلهي يدي سيكولي يحي بل horta aynu wada daawano baabajey weliba jeekay nimco hebe oo si kooban uga hadlaya dhibaatada dadka qaarkooda ay sameeyeen markii uu geeriyooday Allah u naxariistay cabdi muriidi dheere ajakisa inka loo yaqaano Umar Shooli magacii loo garan og yahay Hano Abukar walaalkeed magaciisa afgarashaduna yahay Umar Abubakar ilma ajakis isagoon wicin oo u tacsiyaynin oon oranin inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun ayuu yiri lacag baan u gurayaa $3,000 buu wallaahi oo billaahi oo tallahi ninkaas ciyaalka ku qaatay $500 waa diray shantana muusan direene waa isqabsatay media isqabsaday isku imaadaan ilmaha ajakis waxaa idin dhihi lahayd garabkooda aan soo istaagna aan ka soo muuqano digniintaana waxay ku socotaa dadka dhaceen lacagta agoonta hadiiba ay jirto waxaan leenahay jecelo nambarkiisa haysa iyaarkiisa lacagta ku soo hagaaji 24 saac gudahood ma ku soo hagaaji weysay war wanaagsan ma laga heli waayay
sida lagu bursaa xamaraa lagu keenaa ceebtaadana aniga adduunka meel aan ku qariyaayo male rasiidka miya Umar Usman Muhammad numberkiisa yaa loo diroyaa beneficiary Muhammad Abdi Muridi 500 USD total 500 saaxiibayaal waa daawateen haddaba inkastoo youtuberadaasi ay 24 hours ama 24 saac ay u qabteen dadkaasi inay lacagta ku geeyaan ama ay ugu diraan nambarka Maxamed Jaceelow curadka Cabdi Muriidi Daraajakisa isla markaana si toos ay magaciisa shakhsigaasi aysan u carabaabin ayaa haddana shakhsi social media aad uga hadlay ayaa sheegay in shakhsigaasi lagu magacaabo Cumar Shooli isla markaana uu ku sugan yahay dalka Mareykanka lagu sheegayba inuu fanaan yahay haddaba waxaa la sheegay in durbaba uu bilaabay in lacaga uu ka aruuriyo dadka halkaasi ku sugan si uu ugu diro ehelada Cabdi Muriidi Daraajakisa bal shakhsigan iyo waliba cadeemaha rasmiga uu soo bandhigayo in la daawado saaxiibayaal waxaa dhacday maalin dhaweyd wiil yar oo adoona oo jooga Muqdisho waa wallaahi waa habeen jimca kalmad been inaan idin sheegin ayuu wuxuu soo galiyay Snapchat-ka wuxuuna ku urursaday lacag wiilkii xitaa codkiisa uu soo galiyay waxay gaadhay lacagtii inuu saa ugu ciyaaro wiilkii lacagtaan idin faahfaahinayaa wiil yar oo miskiin ah oo adoon ah oo ku sugan magaalada Muqdisho ayuu Snapchat-ka wuxuu ku urursaday iyo Facebook uu kaga urursaday lacag aad iyo aad u badan wiilkii wuxuu ku yiri lacag baan ku soo dirayaa markhaati waa joogan gabdhihii Soomaali war eega yani anigu markaan wax idiin sheegayo wax beelad qof daawanayo oo arrintan ogseed been ugu sheegaya gabdhihii bisansiyada lahaa karameel bay joogaan oo $200 ka qaaday wiilkii baa wuxuu soo wacay sida roobka wallaahi oo billaahi oo tallaahi inaan been idiin sheegayna gabar ka mid ah gabdhihii lacagta bixiyay markii wiilkii yaraa soo wacay uu ooyay uu dhahay habar yar lacag baad qofkii ugu horreeyay gabadha la soo hadleen lacagta aad tiri Cumar baan u soo diray oo Cumar baa ku ururiyay lacag buu ururiyay waa iga qaban waayay telefoonkii Snapchat baa waxaan ka arku dhahay isagoo lacagtii ku baashaaraya ilaahay baan idinku dhaafay gabadhii intay naxday karmeel bay joogtay maanta bisoo isbeelaan bal waatan walaashay waa taagan tahay waana idaawanaysaa waa ku jirtaa waa dadka aadka ii daawadee been haddaa sheegay waxaa tiri Cabdixakiim oo been baad sheegaysaa gabadhii intay naxday oo hin ka soo daadatay ayay wiilkii iyada u dirtay iyadii gabar kale isku tagay oo isku dardareen $200 bay u direen waa wallaahi oo billaahi oo tallaahi 99 magaca Allah aan ku dhaartay wiilkii wuu ooyay wiil adoonkaana lacag u guraaya waa wada dhiibeen gabdho wax ka naxariis badan waa ogtii waa wada dhiibeen waa la tagay Snapchat wuxuu la soo galay isagoo lacagta saa isku shubay ilaahay baa idinku dhaashay shakhsiga noocaasa markhaati Soomaali Maxameday waxaa markhaati iiga ahayde ilma ajakis isagoon wicin oon u tacsiyaynin oon oranin inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun ayuu yiri lacag baan u gurayaa $2,850 ayaa markhaati ka ahay maalinta qiyaame oo gabdhihii wada bixiyay oo dhan mid walba ay ugu dhaaratay mid kaash dhiibtay iyo mid i tustayba saaka waxaa ku soo biiray $2,850 wiilal iyaguna $20 mar bixiyay oo markii la isku daray lacagta agoontaas uu ku urursaday $3,000 ayay ahayd waxaa laynka soo geliyay oo markhaati ka ahaydeen ilma ajakis eedadood aabahood la dhalatay oo tiri nama soo wicin miidiyaha waxaan ka arkanaa inuu lacag nagu gurtay xitaa nuumausan tacsiyaynin
saaxiibayaal wada wateen haddii aad inagu cusubtiina subscribe dhaha gambalarkana furta si ay idiin soo gaaraan waxyaabaha xiisaha badan ee markaasi aan soo dhigno haddii aad hore inoola joogteenna madaxaad inoo saarantiin saaxiibayaal dhaliil ammaan bogaadin talo iyo tusaale haddii aad inoo haysaan qaybta commentiga inoogu reeba waan idin aqrin doonaa